kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roonna waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay in dalku uu ku laabanayo doorashadii dadbaneyd isagoo dawladda shisheeye ku eedeeyay qalalaasihii Muqdisho ka dhacay midowga musharaxiinta oo ciidamada militariga ah ku amray inay ku laabtaan xeryahooda kadib xiisadii Muqdisho oo la dajiyay gudoomiyaha golaha shacabka oo si degdeg ah ugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka ee ku maqan dalka dibadiisa Galmudug oo qaratay in dawladdu ay ciidamo ka soo qaaday magaalada Dhuusamareeb intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warkayga haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in lagu laabanayo doorashadii dadbaneyd isagoo dawladda shisheeye ku eedeeyay inay ka dambeeyeen rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay toole khudbad dheer jeediyay uga hadlayay xaaladaha kala duwan ee dalka ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan shaqooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee amnigeeda qalqalka xoogan galiyay madaxweyne Farmaajo ayaa xalay si toos ah warbaahinta dawladda shacabka kala hadlay isagoo oo ka hadlay walaaca xoogan ee ka qabaan dadku xaaladda ka taagan Muqdisho iyo dhanka doorashada iyo mustaqbalka dalka halka uu hiigsanayo madaxweynaha ayaa waxa uu ka warbixiyay go'aanka dawladda ee ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa waxaana uu sheegay in haatan dalka ay ka dhacayso doorasho diyaarna ay u yihiin isla markaana waxa uu sheegay in dalku uu ku laabanayo doorashadii dadbaneyd ee heshiiskii 17 Sebtembar iyo heshiiskii 16 Febraayo ee guddiga farsamada magaalada Baydhabo ay ku gaareen waxa uu sheegay in dawladdu ay dalka u turayso isla markaana dadka shacabka ee Muqdisho halkii ay barakicin lahayd ay doonayso in nabadda iyo xasiloonida lagu sii jiro ka dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiiskii 17 Sebtembar ayuu yiri madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaaladii nabadeed ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay muujiyeen xiliyadii la soo dhaafay ee adka isagoo soo dhaweeyay baaqyadii kala duwanaa ee ka soo saareen arrimaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu ogeysiiyay in cidda ka shaqeynaysa in doorasho ay dhici weydo oo dalka in la burburiyo ah ay yihiin dawladda shisheeye isaga oo sheegay in cidda u heelinaysa nabadda iyo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay yihiin shacabka Soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay ilaalinayaan dastuurka iyo sharciga ka jira dalka isla markaana waajib gaar ah uu ka saaran yahay sidaas darteedna waxa uu sheegay in si loo xalliyo qalalaasaha iyo dhibaatada ka jirta magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo dalka iyo sidoo kale tabashooyinka la qabo ay sameynayaan in dalka doorasho degdeg ah oo dadban laga qabto isagoo sheegay inuu ku laabanayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo muddo kordhin 2 sano u sameeyay waxaana maalinta Sabtida madaxweynuhu uu sheegay inuu hortagayo xildhibaanada golaha shacabka isla markaana uu dib ugu celinayo hanaankii doorashada ee ay ku heshiiyeen madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyn waxa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadeedba inay joojiyaan kicinta xasaradaha iyo sidoo kale waxyaabaha keeni kara amni xumada dalka waxaana uu sidoo kale sheegay in xasilooni darrada dalka in laga shaqeeyo aysan wanaagsanayn waxaana uu faray hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo isbeddelka shacabka Soomaaliyeed ay dareemayaan lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara qalqal amni waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed laga doonayo inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida si ay amniga u sugaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalkiisa ayaa waxa uu imaanayaa xilli baaqyo kala duwan ay soo saareen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ku baaqeen in dalka doorasho degdeg ah laga qabto hadal ka soo yeeray madaxweynaha ayaa waxa uu laabta u qaboojiyay kumanaan shacab oo ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo dalka dibadiisaba kuwaas oo nabadda iyo xasiloonida Muqdisho si weyn xalay toole looga dareemay xiliyadii la soo dhaafay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka ee ku maqan dalka dibadiisa kadib kulan uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in si degdeg ah ay ku soo xaadiraan kulanka Sabtida ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka oo hor imaanayo madaxweyne Farmaajo fariin degdeg ah ayuu gudoomiyuhu u diray dhammaan xildhibaanada golaha shacabka isagoo ka codsaday in ay ka soo qayb galaan kulanka
maalinta Sabtida la filayo inuu dhaco kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. xildhibaanada qaar ee golaha shacabka ayaa dalka dibadiisa ku sugan, waxaana kuwa qaar ay ku sugan yihiin dalka isagoo si degdeg ah dhamaantood uu gudoomiyaha golaha shacabka u faray in loo baahan yahay inay kaga soo qayb galaan fadhiga xildhibaanada oo ah mid xasaasi ah isla markaana maalinta Sabtida ah oo bisha May ay ku tahay la filayo inuu dhaco. dalka ayaa ku jira xaalad adag xiliyadii la soo dhaafay, waxaana jirtay in xildhibaanada golaha shacabku ay muddo kordhin 2 sano u sameeyeen, taas oo hay'adaha kala duwan ee dawladda loo sameeyay. waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay in xildhibaanada golaha shacabka uu ku laabanayo isla markaana uu celinayo dhibaatadii iyo sidoo kale waxyaabihii ka dhashay muddo kordhintii ay sameeyeen, isla markaana uu kala sheekeysanayo arrimo ku saabsan sidii dhinac kale loogu dhigi lahaa arrimaha doorashooyinka si xasiloon oo nabadgelyo ay ku jirtaan ay dalka uga dhici lahayd iyo sidii loogu tanaasuli lahaa shacabka Soomaaliyeed. go'aanka madaxweyne Farmaajo ee dhanka siyaasadda ah ayaa waxaa la tilmaamay inuu ahaa mid geesinimo isla markaana waxaa si aad ugu farxay shacabka Soomaaliyeed. midowga musharaxiinta ayaa ku amray ciidamada militariga in xiriyahooda ay ku laabtaan kadib xiisadii Muqdisho oo la dejiyay. madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah midowga musharaxiinta iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si wadajir u sheegay in ciidamada militariga ay goobahoodii ku laabtaan kadib xiisadii ka jirtay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo la qaboojiyay iyo muddo kordhintii oo dawladdu ay ka laabatay oo doorasho ay qabanayso. madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay dejintii colaadii ka taagneyd gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ku dhawaaqidii dawladda ee ku saabsaneyd in dalka doorasho ay ka dhacayso. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii hore soo dhaweeyay tallaabada ay qaadeen madaxda dawladda, waxaana uu horeyn ugu mahadceliyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo isagu soo saaray in doorasho ay dalka ka dhacayso iyo in lagu laabto heshiisyadii la gaaray ee 17 Sebtembar. waxaana uu tilmaamay in ay taageerayaan in laga shaqeeyo ilaalinta nabadda iyo in wax kasta lagu dhameeyo wada hadal. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay in ciidamadu ay qaataan awaamirta ra'iisul wasaaraha isla markaana ay gutaan waajibaadkooda ay xiriyahooda ku laabtaan. ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ayaa iyagu looga mahadceliyay go'aankii geesinimada ahaa ee ay shacabka Soomaaliyeed ugu tureen, isagoo madaxweyne Xasan Sheekh uu sheegay in go'aankaas uu ahaa mid taariikhda galaya. dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku taliyay in lagu laabto shirkii Afisyooni si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan, isagoo oo sheegay in horay ay uga digeen in ciidamada la siyaasadeeyo iyo in colaado sokeeyo dalka laga horiyo, isla markaana ay ku baaqeen in lagu dhaqmo sharciga iyo dastuurka dalka u yaala. ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dejinta xaaladii kacsaneyd ee Muqdisho iyo in dib loogu laabto wada hadallada. ugu dambeyntiina Galmudug ayaa qiratay in dawladdu ay ciidamo ka soo qaaday magaalada Dhuusamareeb. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dawladda Federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka soo qaaday deegaanada Galmudug, isagoo sheegay in gobollo kale oo dalka ay jireen oo ay dawladdu magaalada Muqdisho ay ciidamo ay ka soo qaaday geysay. wasiirka amniga Galmudug ayaa waxa uu sheegay in dawladda Federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka soo qaaday magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ka dajisay magaalada Muqdisho, waxaana uu tilmaamay in dawladdu ujeedka ay ciidamadaasi u soo qaaday uu ahaa in loo diyaar garoobo in dagaal uu ka dhaco magaalada Muqdisho sidii looga hortagi lahaa. Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in colaad iyo dagaal sokeeyo uu magaalada Muqdisho ka bilowdo isla markaana dad Soomaaliyeed ay islaayeen iyadoo ay isku dirayaan dalal shisheeye, waxaana uu tilmaamay in dawladda Federaalka Soomaaliya ay arrimahaasi ku hortagaysay, isagoo dafiray in dawladdu ay siyaasadeynaysay ciidamada laga soo qaaday deegaanada Galmudug. xiliyadii la soo dhaafay ayaa dawladdu waxay ciidamo kala duwan ka soo qaaday gobolada dalka, gaar ahaan gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud oo ka tirsan maamulka Galmudug, waxaana ciidamadaasi la keenay magaalada Muqdisho iyadoo arrintaas ay kor u sii qaaday xiisadii dagaal ee ka jirtay magaalada Muqdisho, walow markii dambe is-afgarad ay ka gaareen madaxda dawladda iyo xubnaha ka soo horjeeday. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warsida TV wanaga intaa nabadgelyo.